maahan dagaal waa soo bax nabadeed iyo dabaaldeg ka soconaya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaasi waxa lagu gaaray heshiis si wada jir ah looga wada qayb gali doono shirka furmi doona magaaladaasi oo looga tashanayo aayaha cali madaxweyne oo ka tirsan beelweynta Xawaadle dhawaanahan isqaqabsi ayaa ka jiray shirkaasi hanaanka loo wajahayo uu furmayo ugu dambeyn dadaal ay sameeyeen xubnaha hormuudka ama udub dhaxaadka u ah shirkan oo uu ka mid yahay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbuluulshe la taliyaha dhinaca arrimaha ciidanka deegaanka ee Macwiisleyda Cali Jayta Cismaan ayaa ugu dambeyn la isku afgartay in shirkaasi si wada jir ah u furmo waxaase meesha laga saaray madmadowga shirkaasi ku xeendabnaa kadib heshiiskan gaaristiisa waxa magaalada isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah iyo ciidamada Macwiisleyda ee ku sugan degmadaasi waxay sare u ridayeen rasaas dabaaldeg ah oo ay ku taageerayeen shirkan in uu si wada jir ah u furmo degmada Maxaas shirka ayaa lagu wadaa in maalinta bariya si rasmi ah u furmo maadaama maanta meesha laga saaray madmadowgii ku xeendabnaa furitaanka shirkan waxaase magaaladaasi ku sugan xubno uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed qaar ka mid ah dadka qayb galaya dibadbaxan ayaa la hadlay warbaahinta waxay cabireen dareenkooda ku aadan waxa ay u arkaan shirkan in heshiis laga gaaro furitaankiisa فرقف تعالوا